waxaa jirta arrinta farmaajo waxaad moodaa saxaafadeena iyo dadkeenu inay aad ugu fogaadeen farmaajo looma hayso dambiyadii halkan ka dhacay oo de wax hawla iyo xil ku lahaa may jirin waxaase loo aanaynayaa dawladdii baad dhaxashay Soomaaliya hore markaa bogsiinta iyo soo dhaweyntaad wax ka leedahay ad ka garawdo laakiinse dambi isaga loo haystaa oo la leeyahay adaa sameeyay loomana aanayn karo anu markaas aan hoos ka xariiqaya maxamed siyaab bisraad la dhalatay looma aanayn karo waa gef waana khalad haddaynu aanayno maxamed siyaab intii la dhalatay maxamed sheekhan eega ninkan cusbitaalka ka dhisay de maxamed siyaab baruu la dhashay gef bay tahay taas inta laga daayo oo dadka afka loo gelin ninka adeerkii ayaana laayano haysanaa midda kale maxamed waxaan la yar kaftamay maxamed cabdiye de ninka xididna waynu nahay technically caruurtiisu hadday dalbato maanta waa reer Somaliland caruurtiisu hadday dalbato waa reer Somaliland markaynu isaga la garamayno anu ku ekaano xukuumaddiisan waxaynu ka tirsanayno xukuumaddan maanta joogto madaxda ka yahay oo nu aragno inay ka leexatay dariiqii isu soo dhaweynta waxa jiro kale xukuumaddiisana maxay qaaday strategy bay qaaday leeyahay counter secession strategy in Somaliland la godoomiyo in meel walba laga soo xiro in ninkii salaamaba la maago taasina wada hadal la waan doonayaa falkaana waan gelayaa qubrus waxa ka socda waa ogtiin laba qaybood bay noqotay dawladdii Greega soo farageliso doonaysa inay inqilaab niman jaranaha sameeyeen idaadan waxaan ku darsanaynaa Greega 74kii Turkigu waa kii intii qabtay maanta waa laba dawladood laakiin dawladdii Qubrus ayaa title-kii haysatay inay Qubrus madisho dagaal cad bay ku qaaday exactly waxaad moodaa buugga dawladdaas kula dagaalamayso qaybta Turkiga inay tii koobigeedii qaateen waxay sameynayaan bimacna kalima waa dagaal horti yani waa hostile acts waa hostility inoo gabanin waa dagaal horti inaynu markaa dawladahan soo yaacaya ee la waran dhexdhexaadinayna aanu u sheegno wanaan waa dhinteed dagaal ugu abaabulaya waa dagaal horti marka lagu curyaamiyo dhaqaalihi laga curyaamiyo international community laga soo xidho dhaqaalihi lagu siinay la joojiyo dekadaadii la xayiro haddana waynu heshiinaynaa waa dagaal horti in fact marka taana inaynu saa waragno oo inaan raalli kaga ahayn dawladahan soo yaacayana aynu saa ugu sheegno